moydiba ila soo martee miisaan xaqa lama magi karee minika jannada mawlaha ka dhigo maamoy macaan mawlaha ka dhigo. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامجك دحل هويو أتكل سعتين براها بلشدة قيبت يوتيوبك. برنامجك وحانو مالقليه هي عد وحبرشدة وقابل سنقحوتي كل قندلك مصر CRS مرول بوما سنتين أيالينا هاي ما انتو حاسمينينا هدو إلهي كرال النقضو باتيغان أوجيدين نسمينينا وحان كسمينينا عنبر لبا حريق له مشروعنا فلسيت waxaad u baahan tahay maqaas mastarad jeesto kii gacanta lagu cabiraayay mastarada qoorta iyo mitirkii wax lagu sameynayay intaas ayaan u baahanahay inaan mashruucan aan fulino maanta. waxaan ka sameyn doonaa cambuur laba xarig leh. hore waxaa usoo aragteen cambuur hal xarig leh, haddana waxaan ka sameyneynaa mid laba xarig leh. marka insha allah ila socda. marada fidineynaa maanta waxaan ku adeegeynaa ku shaqeyneynaa mastarada dheer ayaan ku shaqeyneynaa. mastarada dheer mar walba waxay noo calaameyneysaa dhirarka ay naga caawineysaa inay noo calaameyso. marada waa 4 xabo, 4 laba iskugu duubantahay, waa maro 3 mitir ah, 4 laba iskugu laaban tahay. marka insha allah si fiican aan isku la ekeysiineynaa. marka si fiican isku la ekeysiino on saani ka dhigno cala aqal meesha qorta ilaa iyo garbaha si fiican aan isku la ekeysiineynaa. waan simeynaa, dejineynaa, waan habeeneynaa yani. kadib hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala karaal noqdo waxaan soo qaadaneynaa mitirka. marka hore waxaa ka bilaabeynaa garbaha waa saa ujeedin waa 20 ka aan ka bilaabeynaa, aan ka calaameynaa. marada way qashin badan tahay, way flower badan tahay, markiina arkiisina laga yaabaa, laakiin waan dadaalaa insha allah. sorry. kadib intaas waxaa sameyneynaa gacanta ka calaameynaa. haddana 20 ayaan u calaameynaa, 20 ilaa 10 oo xariga kor noqon doono. kadib dhexda 20 oo calaameynaa. marka 3 qayb oo kala qaybineynaa, qaybta garbaha ilaa ay kilkilaa ilaa ay dhexda hibiska uma baahnin, laakiin caadatan dharka waxa 3 qayb loo qaybiyaa. marka intaa kadib waxaan sameyneynaa haddii ilaahay karaal noqdo xabadka qiyaaseynaa maadaama uu yahay gacanta sameyneynaa yaa rabaa. gacanta qiyaaseynaa 10 u jareynaa gacanta 10 ilaa iyo 10 kore 20 ay isku noqonayaan. 10 intaas ka qaadmaysaa haddii ilaahay yiraahdo. angalka ku sameyneynaa haddana maxaa la dhahaa wareeg gacantan sameyneynaa. wareeg gacanta mastarada ku calaameysan doona, laakiin hadda dhexda calaameynaa oo 30 aan ka calaameynaa. 30 marka calaameyno dhexdeena way noo saaniyeysantahay. kadib gacanta marka aan ku calaameynaa gacanta iyo wax ku calaameynaa iyo dhexda intay tahay ayaa mar walba gacanta lagu calaameeyaa. si fiican jeestada ula raaceyna saa u jeediin cashaan gacanta inay qalqaloocato lama rabo. intaasna saaniya ka dhiganaa hartay. kadib qoorta sameyneynaa. qoorta marka oo xargaha la calaameynayo wax yar laga qaadaa. waxaas yar waxaa waaye waxay ka caawinayaan xabadka inaa maaragtay si fiican aad maaragtay garbaha iyo ilaa iyo xabadka qaybtiisa kore si fiican cambuurka inuu ugu fariisto ee ka caawinayaan. waxaan qaadeynaa insha allah qoorta qiyaasteeda qaadeynaa. qoorta 10 senti oo qaadeynaa maadaama 2 xarig uu yahay. waan yareyneynaa yani si 2 xarig garbaha korkooda ay ugu imaadaan bidabt meesha loo baahan yahay. 8 aan qaaday 8 ilaa 2 senti oo laabmeys 10 senti isku yihiin. marka 10 senti waa qiyaasta xabadka si fiican dhaq ugu noqonayso oo maaragtay si fiican gudaha usoo galaa. kalxamaha korkooda xargaha inay imaadaan la rabaa, midna garabka korkiisa inay ku istaagtaa loo baahan yahay. marka insha allah 5 senti haddana
dherarka qoorta ka calaameynayna allah waa 10 senti 10 senti ka calaameynayna waa isku dareena marka wareega isku dareena kii dhinacaas loo qaaday ala fikra camburkan qoorta iyo garbaha qoorta iyo maxaan ku dhahaa dherarka qoorta iyo balaca qoorta inay isla ekaadaan waa daruuri labada dhinac inay isla ekaadaan laana cambur kuleelaha loogu talagalay waaye hawa la rabaa meel hawada si fiican inaad ooga haweystid loo baahan yahay intaas kadib garbiya kala calaameynayna intii oo u dhaxeyn lahayd 5 senti aan ka reebaynaa 5 senti عشان garabka oo ka soo baxay kilkilaha korkooda iyo garabka qoorta ka baxay labadoodaba inay meel isku hagaagaan la rabaa saasoo calaameynayna maadaama markii hore garabka oo kaamil ah calaameynay haddana waxa waa garabka waa la kala yareynayaa عشان caadatan 20 ama 18 garbaha naagta bani aadamka ama haweenka kama dheeraba marka xargahan waxaa la rabaa meel fiican oo saani inay kusoo fariistaan saa darteed waa inay gudaha soo galaan waa xabadna gudaha soo gala xabadna garab korkiisa uu istaago xabadna kala xanta korkeeda inuu maro si maaragtay qofka uu dareemo degan yani cambuurka si fiican uu la ekaado kadib 20 dhexda aan calaameynayna dhexda laga bilaabo ilaa iyo hoosna mastarada ku calaameynayna mastarada waa la qaluucinaya meesha cambuurka daraftiisa u dambeyso ku aadinaysa عشان si ay saani maaragtay qadka la raacay saani soo kugu baxo ilaa iyo meesha xagash ku soo aadayso ayaa si fiican looga calaameynaya inta kadib qadkaas ku dardareena waan jareena insha Allah biidnillahi alkarim okay sorry qoorta hoos ay gashay laakiin waa u jeedin wareegaas yar laga jaraya qoorta macleeshi u qaata video mar hore duubay marka cod saaritaankiisa xoogaa waa iska hakad yara galay marka hadda intaan garabka aan jarin cambuurka hoosa ka soo jaray ilaa iyo dhexda la imaanaa si garabka xabadka uu u noqdo aan u helo qiyaas sax ah aragtay hoos markii laga soo jiro dharka xitaa uu ka kala yaraanaya waa gurguritaankii waxa ka kala yaraanayo culeyskiisa inuu isku qasmo inuu isku laabmo inuu si noqdo ka kala yaraanayso marka gacanta hadda si tartiib ah oo fududa gacanta u jareena saa u jeedin gacanta jareena waa la soo raaceena wareegeeda wareeg gacanta markaa ka jarno xabadka ku saaniyeynayna عشان si fiican si oo maaragtay oo iskugu la ekaado wareegii hore aan sameeyay ama garbaha 20koodii hore aan sameeyay ayaan ka jaray hadda laakiin waxaan ka jarayaa qiyaastii dambe aan qaadanay si labada xarig ee u soo galaan gudaha ee u soo galaan yani intii yareedo zaidka ku ahayd aan ka baxshay saas uu noqonayaa marka u jeedin waa diyaarsan yahay cambuurka kaliya waxaa noo dhiman xargihii inaan sameeyno xirgaha hadaa doontid hadaadan qiyaasi karin oo gacmahaaga ama maqaska ama 2 far 3 far aadan qiyaasi karin mitirka soo qaadanaysa oo ku calaameynaysa ama waa jaraysaa marada waad ku dulaabaysaa si maaragtay ee u la ekaato oo maaragtay si fiican wax qiyaas fiican u heshitade kadib marada xargaha laga sameynaya rabaa 2 dariiqo waa u goyn kartaa marka hore waxaa idin sheegay waa jaraysaa waa ku dulaabaysaa ama waxa soo qaadanaysaa mitirka 5 senti aa jaraysaa 5 senti micni waxay ka dhigan tahay xarig fiican oo nadiif ah ku soo baxa labada dhinac ka wada laabi kartid waa soo qaadaysaa mitirka soo qaadanaysaa mitirka markaa soo qabsatid ayaad 5 senti ka qaadanaysaa 5 senti waxay noqonayaan xarig fiican oo labada dhinac laga soo laabo oo si fiican cambuurka tuleysid shaarka surwaalada xargaha la galiyo kulli si fiican kuugu maaragtay xarig fiican oo is celinayo waaye hadday garbaha tahay hadda qoort ku laabaysid meel kasta ku sameynaysid
5 senti waa maximum size haddii mitirka waaweyn hadduu yahayna 3 senti kan yaryarne waa 5 senti marka maqaskaa la raacaysaa si dhib yar oo xarig isla eg oo fiican ayaa si dhib yar kuugu soo baxaayo oo kuugu jarmaayo oo aa ku diyaarin kartaa xarig isla eg meelna aan qoorta ka yaraanin meelna ka weynaanin garbka meel ka yaraanin meel ka weynaanin haddaad doontidna dariiqa oo ukhraane 3 far intaa ku qiyaasatid ayaa isku sii labalaabaysaa markaa isku laabtidna nafsi qiyaastii kuu soo baxayso waa dariiqo kale xargaha siyaabo kala badan kala gedisanaa loo sameeyaa kuwa waxaa jira yaryar oo fiina laga dhigo insha allah kuwaasna waa gaaraynaa kuwan laakiin waa kuwa iska caadiga dhexdhexaadka ah qof walba uu sameyn karo oo inta badan dharka lagu talo cambuurada lagu talo haddaad doontid waxaad kusii kabaysaa bahalka cado oo kuleetiga lagu sameeyo ama geedaha qafiifka ah kusii dhexgelinaysaa xarig taagan uu noqonayaa waa warwareeganaa kula warwareegsaa adiga u jartid uu kugula warwareeganaya marmar waxaa dhacdo dharka saani hadduu yahay kan hadda aa ujeedin waa 3 xagal laakiin markuu saani yahay wuu ka yara dhib badan yahay marka uu 3 xagalka geesgeeska loo sameynaa markaad 3 xagalka aa ka goosanaysid dharka xariga waa kula warwareeganaya oo haddaad wareejisid waa kula wareeganaa laakiin marka marada xariga saani dhar saani aa ka jirtid sacab waa ma kula wareeganayo waxaa galaayo kadkaduud iyo qalad galaayo marka saas darteed ayaan mar walba waxaa u doortaa 3 xagalka inaan ka gooyo si xarig fiican oo saani ah oo ila warwareegta aan u helo oo maaragtay qoorta ku wareejiyo haddii oo tahay haddii afargees tahay wax walba wuu ku soo baxayaa marka xargaha meesha saa ooga baxnay xarga badan oo qurqurux badan oo kala nooca insha allah hadduu ilaahay nafta beenta idaaya waa isla wada arki doonaa cambuurkan waa basiid tulitaankiis waa basiid wax kasta waa basiid laakiin marmarka qaar waxaad aragtaa detailska marka lagu sameynayo ama tafaasiilka cambuurka inuu ka dhib badan yahay cambuurka la dhahayo waa dhib badan yahay inuu kasii dhib badan yahay laga yaabaa wax walba waxaa laga rabaa fuujignaan indhahaaga furan adoo diyaarsan inaad tushidaa la rabaa adoo maskaxda mashquulka ah waxba ma sameyn kartid ibdaac dhan ma sameyn kartid horumar dhan yacni ma sameyn karto waan toleena hadeertaane waxaa imaanay harqaankeena yaraa ayaa imaanay marka hore waxaan garba horta laisku tolaa meesha ma yaalo laakiin waxaan sameynaynaa dhinacyada marka hore ka toleynaa markaan dhinacyada ka tolno oo aan qararafino dhinacyada labada dhinac dul saaray si fiican isku tolayaa mar walba dunta iska ilaali hadda matalan cambuurkan kalaaro badanaa ku jiro dun badan uu qaadan karaa oo yacni kalaaro badan leh kala noocnooc ah laakiin marmarka qaar waxaa dhacda kalar aan ku jirin duntiis markaa ku toshid inay baaris ay soo noqoto soo muuqato dharkan waa qaab dareenaya mar walba dharka markaa tulaysid waxaa isku daydaa dun nooca dharka aad tulaysid u eg ama nooc ku jira inaa ku toshid hadda aniga waxaan ku talayaa cadaan marka cadaankana waa ku jiraabo maradan way madoodahay cad iyo madow mar walba way isqaadanayaan kalarada isqaadanaya xitaa haddaa ku toshid wax quruxa ka qaadaan marmarne dharkaba way qaab dareeyaan dhinaca ka tolaya saa ujeediin dhinacyada marka hore ka toleynaa maxaa yeelay garbaha cambuurka sidiisaba qofba siyuu u tolaa laakiin ani markaa tolaya waxaan jeclahay garbaha inaan ka bilaabo si marada ay ku degto aysan ii wareerinin hadda garba ma leh oo garbihii iyagaaba laisku sameyn rabaaba hadduu ilaahay yiraahdo marka dhinacyada ka tolaya labada dhinacaan ka tolaya ilaa socda insha allah biidnillah alkariim xaba tartiibteena wax mashaakil ma jiro tartiibaa u toleynaa si deganaan degdeg haddaa ku toshid waa kuu tolmayaa laakiin waxaa laga yaabaa qalad inuu galo cambuurka uusan kuu degin inuu kuu fariisanin sidaa rabtid inaadan ka helin markii lagu labisto qaabdare inuu noqdo dhinac inuu ka dheeraado dhinac inuu ka gaabtaa dhacdo dhinacyada markaa ka tolno bilmara waan qabanayaa hoos darafta hoosaan ka laabaya waa ujeediinba indhihiina macalin idin hoosaan ka laabaya wareega hoos dhanaan laabaya markaan laabo intaasoo dhan waan kasoo wada baxayaa hal mar dhinacyadaa ka tolay hoosaan ka laabaya kadib
xabadka usoo laabanayna sida u tuleysiin labada xariga idin tusinaya morless waa sidii xargihii hore loo tolay oo kaleeto halka xarig saa u toshid labada xarigna u tuleysaa saddex xariga toleena afar xarga badanaa toleena insha Allah biidnillaahi kariim seefkan kulaylahan waxyaabo badan insha Allah aan idin faa'iideena hadduu ilaahay karaal noqdo ducadan igu soo kaalmeeya subscribe like iyo share ha iga hilmaamina si maaragtay qofkii u baahan oo uga faa'iideysto ama hadee model ahaan noqoto daruur ma qofkii inuu harqaanka uu ka barto laakiin waxa laga yaabaa dadka qaar fikrad inay ka qaataan modelka inay arkaan ayagana fikradahooda kaleeto ee kusii darsadaan oo sii horumariyaan ee sii qurxiyaan dhici karto marka please share gareeya like taagi laabina si dad badan uu gaaro commentiga waxaad doodka qabtiin waxaad jeceshihiin ila soo wadaaga abaayada iyo soo qortay reer Masar waa salaamaya ayadana waan salaamaya salaan kal iyo laab meeshaada ilaahay ku wax xafido adiga iyo awlaadaadan ku leeyahay macantu kulligiinba sidaas idinkaga baahanahay waxa ku qaldanahay intaas qalad waa idhaha wixii ku saxanahayna sax waa idhaha waxa jeclaatiin like-ta isaara loofka flower-ka kulli waxba ha iga ilaawina saa u jeedin camburka hoosaan ka laabaya kulli waan wada laabaya please gruubyadana igu share gareeya gruubyo badan aniga waan ku jiraa ku share gareeya kulliba idinkana waa codsi gaar ah gruubyada igu share gareeya hadda i garab qabtay maxaa lahay isoo garab istaaga heel walaal ii fidiyo insha Allah biidnillaahi kariim wixii adan horumarkayga waa horumarkiina waa horumarka ummadda Soomaaliyeed waa aad iyo aad u mahadsantihiin intaas kadib hoosa ka laabaya waan waa kulli wareego dhan aan wada laabaya inkastoo maaragtay ay ahayd inaan jaro in yar markaan laabayo inaan jaro laakiin waxaan rabaa inaan tuso meelaha qaar oo camburka darfihiisa geesihiisa oo geesaha oo kaleeto meel waxaa jirto gaaban sida u laabi lahayd laab yar ku laabay meesha kaleeto oo caadiga ahne laab yar oo hal senti ku laabay mar walba dhererka markaa sameynaysidne sentiyadaas inaad ku dirtida la rabaa haddii sentiyadaas aad ka bixisid laab maaya wax laga yaabaa camburka inuu gaabto ama qaab daroobo marmar saa u tuleys waa ka meeshaas way gaaban tahay duub yaraa duubeysaa isku duub ma ahan haddaa isku fiirisiin la isku laab ma aha laab waxaa jira gaaban iyo waxaa jira laab normal marka intaas joogtid laab normal bilaabeysaa laabkaas normaalka waa 3 senti oo kaleeto 3 senti aad laabeysaa laakiin laabka yar waa 2 senti marka sida oo kale laabeysidna waaba ujeedaabo meelna duub yar laabeysaa meelna duub fiican oo qiyaas ah laabeysaa insha Allah intaas kadib laabka wali wadnaa laabka camburka waa dheer yahay 3 mitir waaye oo wax yar yani nus mitir camal ka maqan yani 2 mitir iyo bar laabeena hadeertaan oo camburka square-ka markii hore wuxuu ahaa halka xarigkan le wuxuu ahaa mid dhinacyada kab laga galiyay baalahiisa Faransiiska oo kale ahaa laakiin kan waa baala iska normal waa baala saani sida maaragtay camburada oo caadiga hoos talaabada laga qaadi karo uu u jaran yahay waxba ma lahan French cut maaha Italian cut maaha waa iska caadi yani sida baalaha Faransiiskana maaha baalaha Talyaanigana maaha waa baalo dhexaad baala caadi waa oo dharka saaniga markii loo jaraayo baalaha dadka ay sameeyaan inta badan wadanka iskale bidabt ma aqaano laakiin waa baala caadi intaas kadib markaan laabkii oo dhan wada laabnay hoos dhan waa laaban tahay garbaha sameynaynaa hadeertaan garbaha waa sidii hore u sameynaynaa marka horeeto maradii ayaan soo qaadaynaa 5 senti ahayd ayaan aan ku sameynaynaa mar walba 10 senti ka tagaysaa 10 senti oo hore 10 senti oo dambe ka tagaysaa yani square-ka gacanta waxa laga rabaa matalan 40 inuu noqdo 40 inuu noqdo laga rabaa 40 marka 10 waxa kuugu jaran tahay bahalka angle yar oo kor soo galaayo horaadada korkooda imaanayo waa 10 senti iyo horeyo 10 senti iyo gadaalo 10 senti waa 20 senti marka 20 senti waxa ku sii kabeena xarig 10 senti 10 senti bidabt عشان waa normal size-ka qof walba oo bani aadam oo xiran karo gacanta bani aadamka inkastoo dadka ay kala cayilan yihiin kala buuran yihiin kala dhuuban yihiin haddana gacanta wareegeeda 40
maba ka badan karo. qofka hadduu si kasta u balaaran yahay xabadka laga qiyaasa, xabadka xogaa ku darsamaya, qoorta wax ku darsamaa, xabadka wax ku darsamaa, garbaha wax ku darsamaa, laakiin wareega gacanta waxba kuma darsamaayo. dad bini aadan waa jiraa kalxamahooda gaaban yihiin, laakiin ayagana kuleyba ma badna, laakiin inta dadka harqaanka maaragtay specialistka ay maaragtay sameeyaan waxa waaye 40 wareega gacanta maximum. xataa qofka hadduu dhuuban yahay wareegiis waa 40, laakiin gacanta meesha gacanta gelaysa laga yareynaya, garbaha korkooda marada la gelinayo, gacmaha shaatiga dhaadheera laga yareynaya, laakiin wareega gacanta mar walba 40 loo ahanayo. ma ka badan karo inuu ka yaraado maahane. maradii 5 senti soo qaadeena, xabadka saareena, xabadkan si fiican 10 senti ka reebeena. 10 senti waa extra, waa isku labalaabeena. 10 iyo 10 marka 20 aan u imaana, 20kaas waa calaameynayna, waan maaragtay waa ka tegeynaa. markaan gaarno waan joojinaynaa meeshaas tulitaanka cashaan meesha kaleeto inaan la gaarno. maasha allah waa sahal jiddan, inkastoo dharka shagar uu badan yahay oo maaragtay caleemaha ay ku badan yihiin oo si sahlan oo qofka bini aadanka uusan u fahmi karin, haddana waxaa haddaad rakistid waad fahmi kartaa. insha allah maalin kale hadduu ilaahay nafta beenta ii daayo waxaa idin soo sameynaya mid 2 kalar si maaragtay si fiican ugu aragtiin. way socotaa sheekada. markii hore halaan sameynay, hadda 2 aan sameyneynaa. insha allah marka soo socotana 3 aan sameyneynaa, waliba aan galo qurux badan leh oo cajiib aan ku dhahay war insha allah. kulaylahan aan ku dhahay xargaha ku baashaleena hadduu ilaahay karaale noqdo. xargahan 1 ilaa 10 ilaa 50 intuu gaaray waa wadeena ilaa kuleelka laga baxayo. marka dhexda ka bilaabeena mar walbo marada markaad sameynaysid kan dhabarka maraayo dhexda ka bilaabaysaa, si kan hore uu soo imaanaya horeyna saani uu ugu imaado, kan dhabarkane dhexda ka bilaabaysaa si maaragtay kan gadaalaad dhexda ka bilaabaysaa ama dhabarka, si kan xabadka hore oo muuqdo uu u noqdo mid nadiif sida dadka dhanba dharka u tolaan. xitaa masnacyada ama maaragtay meelaha dadka oo hodkatuuriyada iyo wax sameeyaan sidaas loo tolaa dharka. hore waa nadiif, gadaalne wixii wasaq toliin ka kab mar walba gadaala la iska geeyaa. marka saasa u toleena, waa kor saareena, kadib 10kii calaameynayna. haddana mar kale hoolaan oo tacbaan oo gacay 20 aan ka tegeynaa. markaan 20 waa kan hore kan dambe intii soo hartana xabadka ku wareejinaynaa. haddana ilaa ay tulitaanka ma ka bixaysid waa ku wadaysaa cashaan adeegeeba marada ka qaadaysaa. kadib dhinaca kale imaanaynaa, dhinaca kale aad soo qaadaysaa, yacni gacanta wareegeeda kale. hadda kan hore ku tolnay, kan dambe haddana soo qaadaysaa, waa ku tuleysaa. markaa ku toshid waa ku tuleysaa. kadib markaa dhameysid afka iskaga qabanay, iskaga tuleysaa. haddana waad ku duubeysaa. markaa duubtid marka gacanta si fiican aad ugu tiisaaniyin kartaa. maaragtay way isku soo hagaagayaanba bidabt miqyaaska adiga aarabtay uu ku noqonayaa. meeshaasaa ka bilaabaysaa. haddana dhinacii kaleeto darafta gacanta ka bilaabaysaa, waa ku saaniinaysaa. markaan xariga hoos u maraya, kor ma soo maraya, laakiin markaa tuleysid waxaa la rabaa si fiican inaa iskugu aadisid, because kor markii la soo marinayo hal dhinaca korkuu soo maraa xariga, dhinaca kale markaa sameynaysidne hoos u galaa xariga. marka si fiican oo saani inaa iskugu tushidaa laga rabaa, oo deganaan oo taagtaagsi oo fartaada ku qiyaasan kartaa. hadaa rabtid kartoonaad dhexgelin kartaa. dadka qaar trikiska ee sameeyaan aad sameyn kartaa. marka insha allah saasaa u toleynaa. ujeediin tartiib xaba garraf iyo gurruf iyo degdegsiimi iyo ma jirto. tartiibtaada u tolanaysaa, tartiib. haddana waa soo qaadee 20 senti aad qiyaasanaysaa. 20 senti gacanta ku qabanaya, farta ku calaameynaya, kadibna xariga ku tuleysaa inta ka gaaraysid. kadib darafti kala soo qabanaysaa, waa ku dul tuleysaa. haddana yaa salaam, wax dhib leh ma meesha yaalo.
dhib ma yaadho maasha allah allahuma salli calaa maxamed degnaan iyo caqli iyo waxaa loo baahan yahay iyo maaragtay si fiican inaad maaragtay indhaha oo kala bixisid waxaad tuleysidna inaad ku mashquushid aad iyo aad ugu mashquushidaa loo baahan yahay bas intaas kaliya waa intaas wax dhib badan miya intaas wax dhib badan ma aha qofka hadduu rabo inuu wax barto wuu baran karaa hadduusan rabin inuu barto taas waa mushkiladda saa u jeediinba markii hore aan xariga bilaabayay in yar aan ka tegay inta yareed aan ka tegay iyo intan zaa'idka ah waa ugu talagala markii horeba waan reebay intaasoo sentiyaan reebay cashaan inaan iska hor keeno aan isku tolo marka v u tuleysaa ma aha iska tol xataa ma aha meeshaas aad isku tuleysid si v aad u sameynaysaa oo maaragtay qurux badana u sameynaya cashaan si maaragtay uu saani uu u noqda markaa laabaysid laabka inuu ku sahlanaado kadib meeshaad ka bilaabaysaa nafsi meesha aad ku ekeysay haddana ka bilaabaysaa gudaha maaragtay aad usoo laabaysaa cashaan xariga waa isku tulmaayaa saasuu noqonayaa haddaa rabtid saas intaad yeeshid laastiga gelin kartaaba siyaabo badan oo qurux badan wax loo sameysto wallaahi waa way jiraan marka insha allah hadda kuley kana hadda gacanta ku haynaa kanaan maaragtay aan ka dhargeynaa insha allah ku kalena waa gaaraynaa hadduu ilaahay noqdo karaale noqdo insha allah saasaa gudaha ugu soo laabay 2 jeer isku laabaysaa meesha aad ku ekeysiyaad ku laabe bacdeen gudaha soo gelinaysaa yaa salaam saas isku leekaana wax isla eg oo saani ah oo maaragtay waxa ku soo baxayo oo sahal tarrak harqaanka marinaysaa xarigaaga waa ku diyaarsan yahay 20 senti wax ka yar male wax ka weyn male garab soo dhacay ma lahan garab waxa way taagan meeshiisa istaagsan oo si fiican ku leeyahay ku qiyaasan dhar kale tolaa aniga waan jeclahay because qiyaasteeda la ii tolaaya marka saas waay maasha allah allahumma salli ala maxamed meesha soo gaarnay 20 senti ee ahayd gudaha isku gelinay si dhib yar si isla eg isku gelinaysaa gudaha isku laabaysaa si isla ego maaragtay oo dhib yaraad isku laabaysaa labadaba gudaha galayaan kadibna waa tuleysaa waa sasaar qaanku dul marinaysaa xarig yaro saani ah oo gacantana la haysto meel ka yareen meel ka weynin ayaa ku soo baxayo maasha allah allahumma salli ala maxamed bis wax kasta waxay u baahan yihiin foojignaanna ku tushida u baahan yihiin kaliya bis wax dhib badan ma xargaha waqti ay qaadanayaan laga yaabo meesha cambuurkaneeto kaligiis maalin dhan aan tolayay waxa laga yaabaa cambuurada gacmaha dhaadheer leh 4 xabo inaan tolobo isdul saaro ayaa dhacdo details badan ma kaarabaan laakiin kan waxa waa inaa u fiirsatid waay marka idin dhahay wuu ka dhib badan yahay kan caadiga ah waxa waay waxyaabahan xargahan qiyaastaan waxaan inaa u fiirsatid waa cambuurada caadiga hoos baalaha ka ama Faransiis ha ahaadaan ama Italian ha ahaadaan ama kashkash ha ahaadaan ama wax walba uu yahay waxa laga yaabaa 3 cambuur 4 cambuur inaa hal maalin tolo laakiin kan kaligiis hal maalin uu rabaa xargihiis intay yihiinba waxa waaye inta kala ka badan yihiin waqti ka sii dheer uu rabaa deganaan iyo wuxuu rabaa tartiib iyo tulitaan loo fiirsaday iyo maaragtay waxyaabo saas iskugu maaragtay la isugu aboosteeyo la foojiganoo rabaa ma fahanteen marka tartiibtaasaa u tuleysaa xaba u tuleysaa ala fikra meesha xariga uu maraayo sanaafada marada sanaafadeeda waa dhinaca kaleeto bacweynaha waa ogtiin waa 2 mitir iyo bar ku imaadaa marka sanaafada kor soo mariyay meesha aan ka jarayna meesha hoose ahayd عشان حرق كوركيس إنه سيساني وإماذا كلية مركا كل ما حبت أتشد لبا أتشد سدح أتشد waxaan noqonaysaa professional waxba si fahmaysaa waxa ku dardaray kula ku daray xariga ku daray dunkala ku daray dunkala oo maartay laga sameeyay magaciis ma qaanay geedka tusbax ka soo laalaada amal shalaxaas leha ku kortuli kartaa sida doontida maartay tafannan fiiha yani waa horumarinaysaa waad horumarinaysaa
galuusaad ku toli kartaa haddaad doontid dun kalaa ku toli kartaa, waad daabici kartaa haddaad doontid, yacni waxaa ku sameyn kartaa dunta gacanta lagu sameeyo. yacni waxaa horumarinta adaa iskale, laakiin fikradda aniga ku siinaya. marka fikradda haddaa heshid kan oo kale, hadda cambuurkan oo kaleeto bidabti intaad toshid cambuur sahraa ka dhigi kartaa oo aroos lagu aado oo xaflad lagu aado wax lagu aado saasaad ka dhigi kartaa. kan kalena isla sidii aan u tolnay, marka isla sidii aan u toleynaa, yacni aan maaragtay nafsi dariiqa aan marnay ayaan maraynaa haddana insha allah. saasaa u toleynaa isla dariiqadii, waa ku laabeynaa, waa waxeyneynaa, waa fidineynaa, waa dhinac kale ku toleynaa, waa laabeynaa. nafsi dariiqa aan soo marnay aan wada maraynaa, kadib waan saaniyeyneynaa, waa isku toltoleynaa, yani waa diyaarineynaa. horta xargaha waxa uu maaragtay qofka markuu xiranayo ama uu dalbanayo xarga in loo tolo wuxuu umaleynaa wax sahal inay tahay ama sahal ugu tolaa. waxyaabaha ugu dhibka badan adduunyada waa xargaha iyo maaragtay detailska qaar maaragtay way ku dhibayaan harqaan markaa tuleysid. laakiin waxa fiican war walbaba iska deganaan, tartiib, foojignaan inaa iskaga totoshid oo maaragtay isku aadisid oo kala waxaysid oo isku soo celisid oo yacni waa lagu daalayaa. madax xanuun waa wax aan lagu daalin adduunka ma jiro, shaqo kasta waa lagu daalaa, laakiin waa way kala sahlan yihiin xoogaya aan filaya. marka wasku tolnay saa ujeediinba waa kala bixinaysaa. markaa isku laabaysa xitaa isigoo labada xaba isku tashay iyadoo sideeda iskugu dhagan ma isku laabaysa, waa kala bixinay, waa isku sii laabay kadib cashaan marka labada aad isku tolaysa harqaanka ku adkeynay 2 jeer 3 jeer harqaanka marinaysa, kadib waa soo laabaysaa. fahanteen? marka insha allah waan soo wareejineynaa hadeertaan sidii horeeto waa noo tolan yahay, wax badan ma qaadanayo. inaan harqaanka ku qarrafino oon deganaan iyo wax aan maaragta aan isku saasaaniyeyno, inay buurbuuranin, xargaha kala wareerin, waxaas oo dhan inaan ka foojignaanaa la rabaa. marka waxaas oo dhan aad ka foojignaanaysidne waa maraa niyad u haysid soo maaha wax tolitaanka xitaa
ya marka insha allah saasaa u tolnay. Hadda kan xataa labada xarig meesha u dhaxeyso waa saani toos waaye, saani waaye. marka isagoo oo triangle jiro mutalad camal asagoo ahaa la sameeyaa, isagoo oo ahaa la sameeyaa, isagoo waxaa la sameeyaa hadduu ilaahay ku roon yahay buskut oo kale maaragtay dhexda inta laga duleeliyo buskud oo kale loo sameeyo, haddana labada xarig loo sameeyo. adiga insha allah biidnillaahi alkariim ibdaaca weli waa dhiman yahay, laakiin fikradda asaasigeeda xargaha sida loo sameynayo waa sidaas u jeedin waa maalin insha allah. horeyna waa u ballan qaaday, haddana weli waa ballan qaadaya, mid plan ahaan soo qaadaa insha allah. xitaa hadduu uu 2 mitir xataa hadduu yahay shaar laga sameeyo wax dhib ee ma laha. marka isagoo plan ahaan soo qaadaya, waxaa la tusaa isagoo meeshaas saaniga loof laga dhexgelshay ama flower laga dhexgelshay ama maaragtay adi un wax siinayo qurux u yeelaya cambuurka iyadoo loo sameeyey. waa idin tusaaya, diyaar waay, waxaasoo dhan waa diyaar insha allah biidnillaahi alkariim. waa la kala bixbixinayaa, waxa ibdaac waa badan yahay insha allah. waxaa waaye waqtigaas ka cariiri ilaahayna caafimaad hana siiyo, rabbi subxaana watacaala caafimaad taam allahna siiyo. oo maaragtay wixii aan rabno hamigeena ilaahay nagama horkeeno, wixii aan rabno waqti aan ku sameynay caafimaad aan ku sameynaba rabbi subxaana watacaala inuu ilaahayna siiyaa ka baryanaa dhammaanteen. idinkana caafimaad ku daawada, caafimaad ku barta, anigana caafimaad iyo soo duceeya intii aan jeclahay oo dhan, intii ummadda nebi maxamed oo dhan oo xanuunsan inuu ilaahay caafimaad siiyo, cimri dheer iyo cibaado suban. labada xargood saasaa u sameynay, sidaasay noqdeen haddaa ujeediin. ya salaam, saasay kusoo baxeen. qoorta way ku diyaarsan tahay, hoos waa ka laaban yahay. kaawiyad yaraa marineynaa, tit aa ku toleynaa. kaawiyadda markaan marino waa waxyaabaha zaaidka ee dunta wasaqda waxaasoo dhanaa inaa ka saaniyeysaa la rabaa. kaawiyaa soo qaadanaya, waa ku taagaysaa, madiida ayaa ku dhahay ka naftirkiisa. haddaad shaarac ku maraysid wow intee kasoo tolatay ku tolay, intee kasoo gaday, soo diyaar maa la gadaa. 100 su-aalaa lagu weydiinayaa. unique wax adiga ka gedisan dadka waxay wataan mar walba qaadaya. maxaas ku ciilaya gacantaada bar sida wax loo tolo, sida loo design gareeyo, saa naftaada u horumarin lahayd. maasha allah, allahuma salli calaa maxamed. saasuu noqday gabadhaydan yar horta way caateysantahay kuna cambuurkana maasha allah abaayo oo ishubta oo hilibka dharagtii caanaa iska leh. marka waa ka yar weyn yahay oo maaragtay horaadadii baa banaanka usoo bax waa banaxay marka arki, laakiin saasuu kusoo baxay. hoosne maasha allah intaasuu weyn yahay. hawaayaa la dhahaa cambuurkan, waa ku haweysanaysaa. kuleylaha waxaa waaye waxaa la xirtaa dhar maaragtay hawo kaasoo galayso, dharkaa waaweyna mar walba la xirtaa. kuleylaha dhar kugu dhegan markaa xiratid kuleyl waa gubanaysaa, laakiin mar walba dharkaa weyn guriga markaa joogtid dharkaa weyn. subscribe igila maasha allah. waxaa rajeynaa inaa wax ka faa'iideen. ha iga iloobina like, comment, share, subscribe. asxaabtiina inaa la wadaagtiin hadduu idin anfacay wixii fikrad ah ka qabtiin iisoo sheega. waa bahdi dhaxal hooyo oo idin leh qalbiga idinka salaamayna meel walba iyo meel kasta iyo waqti walba ee idin tahay. ilaahay ha idinku xafido, cimri dheer, caafimaad, cibaado suuban ayaan idin wada rajeynayaa. like, comment, share waa codsi. ha iga iloobina qofkii wax ka faa'iiday calal aqal ha isoo mahadceliyo. waxbaan kaa faa'iiday xataa ha idhaho insha allah. anigana gacmihayga allah ii barakeeyo, sadaqa jaariyana allah iiga dhigo inta aan idin faa'iideynayo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.